إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa goordhow ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya General Sheegow Axmed Cali oo ahaa maxbuus u xiran dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo ku jiray xabsiga dhexe ee Xamar marxuum General Sheegow Axmed Cali oo ku xukunaa xabsi dheer ayaa ku xanuunsaday xabsiga dhexe waxaana lagu daaweynayay isbitaalka Erdogan Exdigfer oo ay geeyeen ciidanka asluubta kadib markii ay xaaladiisa caafimaad ay ka sii dartay General Sheegow Axmed Cali iyo rag kale oo lala soo xiray ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen iska hor imaad ciidamo ka wada tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ku dhexmaray degmada Dharkeenley ee Kaawagoday magaalada Muqdisho sanad iyo bar ka hor iska hor imaadka ayaa sababay geerida iyo dhaawaca askar ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho ka howlgalayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 2 November sanadii 2023 General Sheegow Axmed Cali ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah iyo bixinta diyada dilka Zakariya Maxamed Cali iyo dhaawaca sargaal xigeen Cabdullaahi Xuseen labada nin ee midna magtiisa lagu xukumay General Sheegow Axmed Cali inuu bixiyo midka kalena dhaawaciisa inuu bixiyo daawadiisa ayaa ahaa saraakiishii iyo askartii ugu tagtay gurigiisa si loo soo xiro generaalka balse uu rasaas ugu jawaabay sida ay sheegeen laamaha ammaanka iyo xeer ilaalinta sidoo kale Axmed Maxamed Xasan Abi Axmed oo ahaa taliyaha ilaalada ciidanka gaarka ee General Sheegow Axmed Cali ayaa asagana lagu xukumay dil toogasho ah 18 eedeysana aan iraahday oo kamid ah askartii u dagaalamaysay generaalka ayaa iyagana sidoo kale lagu xukumay min 6 sano oo xabsi ciidan ah halka aad nagala socotaan waa sugow yare Allah u naxariisto jareer weyne generaalkooda